السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa su'aal kamid ah su'aalaha badan aan Instagram-ka lagu soo weydiiyo inaan kaga jawaabo su'aashaasi oo ahayd computer science-ka qaybaheyn bartaa si mustaqbalka lacag aan ugu sameeyo ama aan ugu shaqaysto marka muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa labada qaybood ugu muhiimsan ee tahay inaad barato iyo sida aad ku baran lahayd oo si details ah aan u sharaxi doono marka saaxiibayaal intaan muuqaalka ku siisqin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan siina share gareysaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa asxaabta mar walba muuqaalada like saarta si share gareysa kuwa nagu cusub ee nagu soo biiray ee channelka subscribe gareeyay waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin soo dhawaada muuqaaladan markasta saaxiibayaal si share gareeya like-ta comment-iga garab istaagiina aad iyo aad ayaan ugu baahanahay kama maarmo okay haddii aan si kooban marka u sheego labada qaybood waxa ay kala yihiin dib ayaan ka sharxi doonaa sida u baran karto iyo macluumaad kale oo faahfaahsan laakiin haddii aan si kooban idinku sheego waxa weeyaan qaybta koowaad graphic design-ka iyo graphic motion-ka labadooda hadaa doonto mid ahaan ayaad baran kartaa ama labadooda isku baran kartaa iyo qaybta labaad oo noqonaysa mobile development-ga ama web development-ga labada hadaa doonto isku baran kartaa maadaama coding ay yihiin hatta iyadoo coding aad isticmaalaynin way jirtaa muuqaalka qaybtiisa dambe ayaan ku sharxi doonaa okay haddii aan ku horeeyo marka graphic design-ka dhowr jeer hore oo ka hadlaan filayaa laakiin kama hadlin sida u baran kartaan muuqaalkan waxaan ka hadli doonaa sida u baran karto graphic design-ku waa sida loo design gareeyo waxyaabaha ku saabsan business-ka haddii aan lahaayeen logoda business-ka billboards-ka ganacsiyada digitalka lagu xayeysiiyo iyo haddii la daabacayo labadaba sidoo kale barashuudada ID cards sida loo nashqadeeyo wax walba nashqad ku saabsan oo markaasina ganacsiyada u baahan yihiin weeyaan graphic design-ku halka graphic motion-kan uu yahay wax walba motion ah ama animation ah waxay noqon kartaa muuqaalada caadiga ee TikTok iyo YouTube kala soo geliyo waxay noqon karaa muuqaalada xayeysiinta animationada wata ee icons-ka iyo characters-ka ka kooban shirkadaha business-yada waxa lagu xayeysiiyo ay noqon karaan graphic design marka aad baranayso waxa jirta waxyaabo inaad si fiican u fahantahay tahay typography marka waxa weeyaan waa qoraalka qaabka aad u dooranayso farta nooceeda size-ka farta halka aad dhigayso waxyaabahaas oo dhan qaybta labaad waxa weeyaan alignment-iga waxa weeyaan sida aad isugu habeynayso ama isugu toosinayso design-kaaga waxyaabaha uu ka kooban yahay oo dhan sidoo kale waxyaabaha muhiimka ay tahay inaad fahanto graphic design-ka waxa weeyaan ama ugu mudan colorada waxaa la yiraahdaa 3 color ayaa lagu taliyaa badanaa in aad u adeegsato design-kaaga haddaad doontana waxaad ka dhigi kartaa 2 color marka haddii aad 3 ka badasana wax laga yaabaa colorkaada inuu confuse noqdo oo dee qofka markaas u eegaba inuu ku qalqalo colorada faraha badan labana kama yareyn kartid oo macnaha macquulgal maaha laba wax ka yar sidoo kale mar walba waxa lagu taliyaa in kalarada isticmaalayso cadaan uu ku jiro haddii aad 3 isticmaalayso iyo laba isticmaalaysaba in aad kalar cadaan aad ku darto aad ay u qurux badnaanaysaa maxaa design-kaaga okay sidoo kale graphic motion-ka waxyaabaha ugu mudan marka aan filayo dadkan aad u isticmaalaan waxa kamid ah sida muuqaalada loo sameeyo haddii aan leeyahay sida codadka la isugu habeeyo muuqaalada clips-ka loo jarjaro sida transition-nada loogu daro sida effects-ka loogu daro iyo exportation-ka oo qaybta ugu muhiimsan ah sidoo kale qaybta ugu muhiimsan ee graphic motion-ka ama motion graphic-ka waxa weeyaan xayeysiimaha sida loo sameeyo sidoo kale waxaa fiican in aad baarto ama aad ogaato resource-ka ugu fiican ee marka aad waxa aad design garanayso halka aad ka heli karto haddii aan lahayn sawiraanta icons-ka iyo muuqaalada wata green screen-ka tusaale ahaan karaktero ama waxyaabo waxaad helaysaa green screen-kaas ayaad ka saaraysaa dabcan way kuu qurxinayaan muuqaaladaada waxyaabahaas oo dhan marka aad baranaysaa ama ay tahay inaad xoogga saarto mustaqbalka marka aad dhamaysana si fudud ayaad ugu shaqaysan kartaa ama shirkad ayaad u shaqayn kartaa ama si freelancer oo xor ah ayaad u shaqayn kartaa adoo gurigaaga jooga kaliya social media ayuunbaad wax ku xayeysiinaysaa oo waxaad oranaysaa cidda u baahan in waxa loo sameeyo ila soo xiriiro kadibna dabcan waxaad heli doontaa dad badan oo baahiyaha noocaas oo kala qaba ay kula soo xiriiri doonaan okay qaybtaas marka waa qaybta koowaad dad badan oo ku shaqaysana way jiraan dabcan haddii marka aad bilowdana gadaal ayaad ka fahmi doontaa waxyaabaha imkan kula wadaagay iyo waxyaabo kaloo badan qaybta labaad haddaan u imaado waa coding-ka waxa weeyaan waa web development-ga iyo web design-ka iyo mobile development-ga web development-ga iyo qaabka aad ugu shaqaysan karto muuqaal hore aan ku sharaxay baa jira linkigiisana description-ka ayaad ka helaysaa ama qaybta sare card-ka xagga sare hadduu ka soo muuqdo halkaas ayaad ka daawan kartaa web development-ga markaa mar waxa weeyaan mar aad code qorayso oo dabcan waxaad adeegsanaysaa HTML iyo CSS iyo teknolojiyadaha kale casriga sida gaaraan kuwa JavaScript sida React oo kale iyo Node.js kuwa backend-ga PHP iyo waxyaabaha oo iyagana dabcan muuqaalka imkaan kuu sheegayo aan ku sharaxay waxyaabahaasi mar aad adeegsanayso in mar aadan code qoraynin oo aad adeegsanayso teknolojiyadaha maxay loo yaqaano CMS-ka ama content management system-ka sida WordPress-ka oo kale oo aad loo isticmaalo barnaamij aad u fudud oo waqti kooban aad barnaamij waxyaabo badan aad ku samayn kartaa markaan waxaan kugula talin lahaa weliba inaad barato WordPress-ka sababtoo ah WordPress-ku waa barnaamij barashadiisu aad u fududahay isla markaana aad ku shaqaysan karto muuqaal hore aan ku sharaxay baa jira laakiin muuqaalkaas wuxuu filaya muuqaal shortiya linkigiisana description-ka ayaad ka heli doontaa
sidoo kale waxaa jira systemyo la yiraahdo no code iyo low code. Low code iyo no code kaasi muuqaal ayaan ku sharxi doonaa gaar ah maadaama ay yihiin concept u baahan in si fiican oo details loo sharxo waqtiga ugu kooban awoodeed muuqaal kale ayaan ku sharxi doonaa. marka qaybtan codingka waxaad raacsan kartaa ama mobile development waxaad raacsan kartaa mobile development sidoo wada ognahay faa'iidadiisa lagama maarmo oo maanta 10 jirka ilaa 17 jirkiiba de gacanta ku wada haystaan smartphones. haddii aad barato oo aad la timaado fikrad waxa ugu muhiimsan adduunka waa fikrade oo deetana application dadka ay ka heli karaan ama baahiyahooda dabooli karaan sameyso waxa weeyaan waa wadada ugu fudud ee aad ganacsi xataa aad ku bilaabi karto. mobiladana markaa waxaad baran kartaa teknolojiyada ugu fudud ee aad baran karto waxa weeyaan sidaan filayo Flutterku markaa waxa weeyaan waxa lagu sameeyaa mobilada iOS-ga iyo Android-ka labadaba. sidoo kale waxaad baran kartaa React Native ama waxaad baran kartaa Kotlin iyo Swift markaa iyadoo waxa loogu talagalay iOS-ga kaliya ayaa lagu dhisaa halka Kotlin-kana Google ay leedahay isna waxa lagu dhisaa Android-ka kaliya. Flutterka xataa waxa iska leeyahay shirkadda Google laakiin waxaad ku dhisi kartaa iOS-ga iyo Android labadaba waad ku dhisi kartaa. React Native-kana waxa iska leeyahay shirkadda Facebook. Teknolojiyadaas markaa ayaad isticmaali kartaa si aad u dhisto mobile application. marka saaxiibayaal haddii aan soo koobo labada qaybood ugu muhiimsan ee aad computerka baran karto isla markaana aad ku shaqaysan karto ama shirkad u shaqaysaya ama si xor ah u shaqaysayaaba waxa weeyaan waa graphic design-ka iyo graphic motion-ka oo aad mid ahaan baran karto ama labadaba isku baran karto iyo dhinaca kale oo muxuu ahaayay web development-ga iyo mobile development-ga labadooda hadaa doonto isku baran kartaa hadaa doontana mid ahaan ayaad xoogga saari kartaa. intaas ayaan jeclahay saaxiibayaal inaan la wadaago maanta muuqaalka marka waxaan ka codsanayaa saaxiibayaal inaad like saartaan sidoo kale fikirkiina comment-yada ula wadaagtaan xataa emoji-ba Allah ka dhigay wax u soo dira muuqaalka comment-yada maadaama muuqaalada comments-ka badan laga bixiyo aad u faafaan waxaan ka codsanayaa in wax un dayad igu soo weydiisaan comment-ga. sidoo kale saaxiibayaal intiina aan weli nagu soo biirin madashan oo ah madal aan badanaa kaga hadlo waxyaabo badan computer science-ka iyo IT-ga ku saabsan ku soo biir subscribe 5,000 subscriber ayaan hiigsanaynaa intaan sanadka dhamaanin oo wasiirka teknolojiyadda idin leh muuqaalka xiga intaan ku kulmayno. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.